kulanti wacan saaxiibayaal. Haddii ay tahay markii kuugu horreysay aad soo booqato kanaalkan, fadlan subscribe saar oo rukumo gambaleelka si aad u hesho muuqaaladeena ugu dambeeyay. Xubinteena maantana waxaan ku soo qaadan doonaa talooyin muhiim u ah guurka ka hor. Marwa Baba iyo seegeeda Gabra waxay isqabeen ama ay nolol wadaag ahaayeen muddo 50 sano ah. Dhawaana waxa ay xuseen sanad guuradeedii 50aad ee guurkooda ka soo wareegtay, iyadoo munaasabadaasina ay ka soo qayb galeen 9 carruur oo ay dhaleen iyo 17 carruur ah oo carruurteedu ay sii dhaleen. Waxayna qoysaskaasi nus qarni noloshooda ku mideysanaayeen. Ay sheegeen inay muddo intaasi dhan ay wada noolaadaan ay ugu wacneen samir iyo dulqaad. Laba qof oo isqabta ama wada nool midkood inuu qalad ka dhaco waa laga maarmaan, balse inay qaladkaasi dhacay si deganaan ah ay u xalliyaan ayaa u horseedi karta inay nolol farxad leh ay ku noolaadaan, ayay tiri Marwa Baba. Baryahan dambe waxaa aad u batay qoysas wada nool oo aan arrimaha qoyskooda ka wada hadli karin. Kuwa wada nool carruurta inay korsadaan oo keli ah ama aan kalsooni isku qabin. Haddaba isfahan la'aanta noocaani ah marka ay sii balaarato ama ay sii badato waxay horseedaa in qoysaskii dhisnaa ay burburaan oo la kala tago. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha guurka khatarta gelinayo? Tagista Waltangas iyo Indaalka Asafa waxa ay muddo ka badan 10 sano ay ka wada shaqaynayeen la talinta iyo xalinta khilaafaadka ka dhasha guurka, iyagoo ka wada tirsan urur arrimahan ka shaqeeya. Mar waxa laga weydiiyay waxyaabaha guurka khatarta geliya ee burburka horseeda, waxa ay sheegeen inay koow ka tahay aqoonta ay lamaanuhu u leeyihiin guurka iyo xiriirka jacayl. Waxayna ay kala yihiin guurku waxa uu ku bilaamayaa qofka laftiisa. Marka uusan qofka fiirin oo qofka noloshiisa la wadaagayo, waa in uu marka hore isaga isfiiriya, ayay tiri Kabiira Tagis. Dhibaatooyinka kale ee guurka iyo xiriirka jacaylka lamaanaha khatarta gelin karana waxaa ka mid ah aragtida ay dadka guurka ka qabaan oo khaldan, dhaqaale yarida soo food saarta guurka kadib, kala duwanaanshaha dhaqanka labada qof, heerka waxbarashada oo kala duwan, dabeecadda rasmiga ah oo qofka kale akhriyo, iyo in been la isu sheego. Marwa Baba waxayna sheegtay in sodohdeeda iyo sodogeedba ay u aqbashay una soo dhaweysay sidii labadeeda waalid oo kale, oona qayb weyn ka qaatay inuu guurkooda farxad ku soo jiray, nasiibna ay u yeelato noloshaasi. Ragga iyo dumarkaba marka ugu horreysa oo ay nolosha ku midoobaan waxay isku dayaan midba midka kale inuu isku dayo qof wanaagsan oo isu muujiyo, balse xaalku dib ayuu ka xumaanayaa. Dhibaatooyinka iyo dabeecadaha qarsoon ee dhabta ah ee uu qofka leeyahay oo dhan dib ayay u soo baxaan, maadaama inta la wada nool yahay nolosha wax badan oo wanaag ama xumaan ah lagala kulmayo, ayay tiri. Dadka doonayo in ay reer yeelaan sida jeebkooda ama akoonkooda bangiga ay u eegaan waa in ay dib u fiiriyaan aragtida qofka iyo waxa uu naftiisa ka aaminsan yahay, ayay tiri Tagista. Dhibaatooyinka ugu badan ee uu huriya dhibka qoyska ka dhaxdhaca ayaa waxaa sidoo kale la sheegaa inay ugu wacan tahay urur ama hay'ado arrimaha guurka bulshada kala taliya oo aanan jirin. Hadday jiraan ay awoodooda kooban tahay. Qoysaska isguursanaya inta aysan guurka gudagelin ka hor in ay wada fariistaan oo ay si cad arrimahan u qorsheeyaan. Haddii ay sidaas sameyn waayaan, dhibaatooyinka guurka kadib yimaada xallintooda qof ayay dusha ka fuulaysaa. Marka uu qofkaasi u dulqaadan waayana waxay u horseedaysaa inuu qoyska burburo. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubinteena maanta. Tan iyo intaan ku kulmi doono midda xigta waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.